subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subaxnimo idaacadda Simbe ee Muqdisho qodobada ugu doorka roona waxaa kamid ah dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inay ujeedooyin ka leedahay doorashada la filaya inay ka dhacdo deegaanada Galmudug dawladda federaalka ayaa loogu baaqay in si degdeg ah loo soo qabto madaxweynaha dib loo doortay ee Jubbaland al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Kenya ay ku leeyihiin Lamu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ayaa magacaabay guddiga maalmaha xurriyadda guddiga doorashooyinka qaranka ayaa shaaciyay waqtiga ay soo gabagabayn doonaan diiwaangelinta asxaabta siyaasadeed ee waddanka taliska ciidamada Jubbaland ayaa ka warbixiyay xaaladaha nololeed ee ka jira deegaanada Jubbaland ay kala wareegeen al-shabaab dibaddana waxaa ka mid ah Mareykanka oo digniin u diray dawladda Iran iyo baarlamaanka waddanka Liibiya oo ka hor yimid faragelinta dawladda Turkiga ay ku hayso Liibiya ismaqal wanaagsan subax wanaagsan waxaad maqasheen qodobadii wararkeena subaxnimo ugu doorka roona iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii subaxnimo oo fidsan waxaana idin waramayaa anigu Cabdi Satar Xaaji Caliya dawladda federaalka ayaa loogu baaqay in si degdeg ah loo soo qabto madaxweynaha dib loo doortay ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe sida uu faafaynta warkan ku dhameystirayo Cabdicasiis Saciid Bareeda maxamed nuux oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo la hadlay idaacadda Simbe ee Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay inay gacanta ku soo dhigto Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha dhawaan Jubbaland lagu doortay oo isagu doorashadiisa ay qaadaceen murashaxiintii kula tartamaysay iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed nuux ayaa sheegay in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe doorashadiisu aysan ahayn mid sax ah sifa sharci aysan ku dhicin isla markaana loo baahan yahay in haatan dawladda federaalka Soomaaliya ay u dhaqaaqdo sidii sharciga loo soo taagi lahaa maxamed nuux waxa uu intaasi ku daray in dawladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ah hogaamiyaha Jubbaland in haatan ay u kurgasho xaaladihiisa waxaana ku eedeeyay in madaxweynaha Jubbaland haatan uu wado sidoo uu kala qaybin lahaa shacabka deegaanada Jubbaland isla markaana dhulka iyo bariga Soomaaliyeed ugu gacan gelin lahaa dawladda dalka Kenya Jubbaland markii hore Soomaalidu waxay tiraahdaa quraanka haduu alif ka wareero al-baqara kama tooso ma garan markii hore ayaa wareer lagu sameeyo doorashadii amba mid xaq ahayn oo gacmo shisheeye ay ka dambeeyeen marka isla dawladii dooratay oo hor yimid tii kalena waa hor yimid hadda gobolka inuu la goosto dabcan marka ninkaas hadda xaaladiisna maan hadda halkan ka tilmaami karo ma waa qalad waxa soo dhow waa qalad lagu saxay qolada dooranaysan waa qaldan yihiin hadda dawladii baa hor yimid waayo haduu raaco amarka dawladda waddanka dawladda ka dhalatay dawladda ka jirta dawladda xukunta hadda waa barasab gobol inuu hoggaansamo dawladda raaca loo baahay haduu san raacinna Soomaaliya u tashanay Soomaaliya baa iskale Axmed Madoobe ujeedadiisu waxa weeye in gobolkaas uu faliiro oo waddanka ku xiran sida Kenya oo kale darbiyada Kenya ay dhisay badda ay sheeganaysay iyo Dubai-kaba Kenya iyada isla wada sida daaqliyeeda Axmed wuxuu rabaa inuu gacan geliyo Soomaaliya kismaayo hal nin gobol Soomaaliya ay leedahay kama talin karo mana la goosan karo marka marnaba yuusan ku talagelin ama agoosta ma siya kor yimaadeen inuu dalka Soomaaliya gaar ahaan Jubbada hoose uu taliyo oo kaligiis goor uu goosto dawladda kale dabada gashta Soomaaliya ka yeerimayso dawladdu waxaan leeyahay si degdeg ah ninka xilku u qaado waddanka soo xiliso si uu gacan shisheeye maxamed nuux oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo sii hadlayay ayaa shaaca ka qaaday in dawladda shisheeye iyo sidoo kale ergeyga gaarka ay qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Iswan uu qayb ka yahay dhibaatada ka taagan Jubbaland isla markaana uu kala qaybinayo shacabka Soomaaliyeed iyo sidoo kale gobolada Soomaaliya waxaana uu sheegay dhawaan safarkii uu ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland inay keentay khilaaf horle iyo sidoo kale iska horimaad iyo kala qaybsanaan ku timaada bulshada Soomaaliyeed ee degta gobolada Jubbooyinka iyo Gado maxamed nuux waxa uu ka dalbaday dawladda federaalka Soomaaliya inay tallaabo degdeg ah ka qaadaan maxamed nuux ninka lagu magacaabo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hogaamiyaha Jubbaland si wax looga qabto dhibaatada ka taagan deegaanada Jubbaland iyagoo golaha isbedel doonka Jubbaland ay dalbanayeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay doorasho xor iyo xalaal ku qabato magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland caalamka dulanka waa beesha caalamka waxa Soomaaliya kala burburinaya ama kala qoqobaya waa beesha caalamka
horkacayaan dowladaha Kenya, Ethiopia iyo wax lamid ah oo rabin jiritaanka Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya marka marna ka yeeri mayno mana ogolaan karno beesha caalamka inay kasbay ka taliso ama ayadu ay tiraado yani waan calay masaarayna ama waan aqoonsanayna dowladda ka horeeya jira hadii wax aqoonsanayaan waa dulun cad waayo Soomaaliland oo ogtahay inta aragtid dowlad nima sheeganaysa wali la aqoonsan inay yiraahdeen hadda waa aqoonsanayna ama ay usul lulaan arrintaas waa riyaan leeyahay waa riyo dowladda Soomaaliya looga fadhiyo arrimahaas iyo shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed dhammaan arrintaas inuu gudmad awoodu mala beesha caalamka Soomaaliya kama faliso hadda waa iska qabanayna wixii noocaas ah mala ka yeeri doona marnaba Soomaaliya ma ogola garbado in loo qabto Soomaaliya waa dowlad jirta waa dowlad loo yahay waa dowlad calan leh hadda iyadana ka talin doonta Allah socdo si kastaba ahaatee hadalkan ka soo baxay Maxamed Nuux oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay horay u qaadacday natiijadii ka soo baxday doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland bishii Agoosto sanadkii hore ee 2019 waxaana xilligaa wixii ka dambeeyay dhowr jeer hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku sheegtay in la qaban doono doorasho xor iyo xalaal ah isla markaana ay ka qayb gali doonaan dhammaan dadka ka soo jeeda deegaanada Jubbaland walow haatan dowladda federaalka Soomaaliya wax qabad muuqda aysan ka sameyn arrimaha doorashooyinka Jubbaland oo haatan wali dowladda federaalka Soomaaliya waqtiga ugu badan ay ku bixinayso sidii loo dhisi lahaa maamulka Galmudug aad baad u mahadsan tahay Cabdicasiis Siciid Beereeda al-shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar ay ku qaadeen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin Lamu wararka ka imaanaya deegaanka Lamu ayaa sheegaya in aroornimadii saaka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ay degan yihiin ciidamada Kenya waxaana al-shabaab ay sheegteen in dagaal xoogan ay ku galeen saldhigaasi al-shabaab ayaa baraha internetka ku sheegtay in weerarkaasi uu ka dhacay saldhigga Mandabay ee gobolka Lamu al-shabaab ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in saldhiggaasi ay wada deganaayeen ciidamo isugu jira Kenyaati iyo Mareykan inkastoo al-shabaab aysan sheegin wax khasaaraha oo saldhiggaasi ay ku gaarsiiyeen ciidamada Kenya al-shabaab ayaa muddooyinkii la soo dhaafay kordhiyay weerarada ay ku qaadayaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka Kenyaatiga ah Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa magacaabay guddiga maalmaha xorriyadda sida uu warbixintan ku dhameystirayo wariyaheenna Cabdiraxmaan Koronto Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa waxa uu magacaabay guddiga qabanqaabada xuska sanad guurada 6aad ee maalmaha xorriyadda Soomaaliya ee 26 Juun iyo 1 Luulyo wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa loo magacaabay gudoomiyaha guddiga oo ay xubno ka yihiin wasiirada maaliyadda gaashaandhigga amniga gudaha dhalinyarada waxbarashada shaqada iyo shaqaalaha gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir maareeyaha wakaaladda dhismaha agaasimaha golaha wasiirada agaasimiga ku-xigeenka madaxtooyada iyo gudoomiyaha guddiga wacyigelinta qaranka guddigan oo hooshoodu ka eg tahay 2 bilood kadib xuska maalmaha xuriyadda ayay shaqadooda tahay inay qabanqaabiyaan xuska maalmaha xuriyadda ee 26 Juun iyo 1 Luulyo oo bilooyin ay ka harsan yihiin ee sanadkan 2020 iyaga oo kaashanaya madaxda dowlad goboleedyada qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee heer gobol iyo heer degmo in shacabka Soomaaliyeed ee dal iyo dibad ay ku dhiirigeliyaan muhiimadda ay leedahay xuska maalmaha xuriyadda iyo in ay dhisaan guddi hoosaadyo ay ku jiraan howlwadeeno xildhibaano aqoon-yahano salaadiin ururada haweenka ururada dhalinyarada jaaliyadaha Soomaaliyeed iyo dhammaanba qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed xuska ayaa sanadkan kulansaday 2 munaasabadood oo muhiim ah kuwa oo kala ah sanad guurada 6aad ee iyo sanad guurada 20aad ee dib u aasaaska dowladnimada Soomaaliya oo lagu dhisay degmada Carta ee Jamhuuriyadda ee walaalahan ee dalkaasi Djibouti baraha bulshada ayaa si weyn waxa lagu hadalhayaa magacaabista guddiga maalmaha xuriyadda ee Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu magacaabay iyadoona maalmaha xuriyadda ee 26 Juun iyo 1 Luulyo ay ka harsan yihiin bilooyin iyadoona muddooyinka sanadii ayna soo dhaafnay oo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre guddiyadan uu magacaabi jiray marka ay bilo ay ka dhiman yihiin balse haatan waxa uu magacaabay iyadoo muddo 3 bilood ay ka harsan tahay
maalmaha xuriyadda ee 26 juun iyo 1 luulyo. dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyay inay ujeedooyin ka leedahay doorashada la filayo inay ka dhacdo deegaanada maamulka galmudug muddooyinkii lasoo dhaafay kadib markii madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf uu ka hor yimid dhabaha dowladda federaalka ay u marayso dhismaha maamulka galmudug ayaa madaxweyne Xaaf waxa uu ku adkeysanayaa in ra'iisul wasaare Khayre iyo guud ahaan filla Soomaaliya inuusan dastuurku u ogoleen inay qabtaan doorashada galmudug taa beddelkeedana isaga looga fadhiyo inuu soo dhiso maamul cusub oo bedelaya midkan hadda waqtigiisu dhamaaday. xaaladda galmudug ayaa hadda noqotay mid jahwareer sii galaysa iyadoo ilaa hadda aan lagu dhawaaqin 69kii xildhibaan ee baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug. maxamuud oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay in ujeedkeedu uu yahay sidii loo heli lahaa musharax ka yimaada dowladda federaalka isagoo sheegay in arrintaasi uusan wax shaki ah ku dirin. waxa uu tilmaamay in haddii dowladda federaalka ay fuliso ujeedooyinkooda aysan waxba ka soo bixi doonin dan isagoo sheegay inaysan waxba ka soo bixi karin isagoo ugu dambeynna sheegay in shacabku aysan dantooda ahayn arrintaasi. horta taa shaki kama jiro waayo ujeedooyin waa imaanayaan waad ogtahay in waqtigii dowladdu dhammaaday in doorashooyin soo socdaan in dad lagu tartamayo marka taas waa wax iska cad oo maaragtay waqtigii doorashadaaba hadda soo dhow oo in lagu tartamaho waa wax meesha ka jira oo dowladdu maaragtay sidii rabto inay wax u dhacaan way ka shaqaynaysaa ilaa xad maaragtay maamuladuna qabiilooyinkuna hadda waa soo haysta waxaa la dhihi karaa in dana badan kuleeyihiin shaki kama taagna laakiin maxaa ka soo bixi kara aniga waxay la tahay hadday wax ka soo baxaanne wax awood fiican lahoo dadka reer galmudug dan u ah inayna ka soo baxayna ay la tahay waayo dadka reer galmudug waxaa dan u ahaan lahayd in intaa gobol loo dhigo ay diinta wax ka soo tashaan ayagu waxay leeyihiin dhistaan waxay ku heshiiyaan dhistaan maamulkuna maamul markaas oo laleeyahay uu noqon lahaa laakiin hadda waxaad moodaa maamulada qaar waa bacriminaan dhihi karaa waa la rasamaynaa marka ciddi samaysay socodsiiya imaanayso marka waa arrin aad u dhib badan aniga kulli aragtidayda. hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan la filayo inay dhacdo doorashada madaxtinimo ee maamulka galmudug waxaana guddiga farsamada ay ku howlan yihiin sidii ay halkaasi uga dhici lahayd doorashada madaxtinimo ee maamulka galmudug waxaana dhowaan la filayaa in guddigu ay soo saaraan 69ka xildhibaan ee matali doona baarlamaanka cusub ee maamulka galmudug. guddiga doorashooyinka qaranka ayaa shaaciyay waqtiga ay soo gabagabay doonaan diiwaangelinta axsaabta siyaasadeed ee wadanka. muddooyinkii lasoo dhaafay guddiga doorashooyinka qaranka waxa ay wadeen kulamo ay la yeelanayaan maamul goboleedyada iyo axsaabta siyaasadeed ee dalka waxayna guddiga gobolada dalka u direen wafdi ka socda kuwaasoo ugu dambeyn soo gaaray Muqdisho. guddiga doorashooyinka ayaa waxay sidoo kale dood furan la yeesheen siyaasiyiinta iyo aqoon-yahano waxaana guddiga su'aalo laga weydiiyay sida ay u qaban karaan doorasho qof iyo cod ah iyo sida ay suurtagal u tahay. gudoomiyaha guddiga Xaliime Ismaaciil Xaliime Yare ayaa shaacisay waqtiga ay soo gabagabayn doonaan diiwaangelinta axsaabta siyaasadeed ee dalka. midda oo diiwaangelinta haddaan wax yar ugu daro Haydara waxay ku xirnaanaysaa maalinta la cayimo doorasho in la gelaayo 5 bilood ka hor xisbigu waa inuu diiwaangashan yahay wixiisana uu dhammaysan yahay. waxaa kaloo jiro sharciga xisbiyada naftiisa oo hadda waxyaa meelo yaryar oo qalada ama meelo iska hor imaanayso ay jiraan oo dib u eegistiisii loo gudbiyay muxuu ahaay golaha shacbiga oo ay tahay inay maalmahan asagana laga fariisto oo lasoo dhammaystiro si shaqadii loo wado. waxaan ku dhahay waay maalintii la aasaasay ilaa hadda marba maalinta ka dambaysa tababaray qaadanayeen. dadka xarumaha gobolada joogana waxay ka mid yihiin guddiga muxuu ahaay madaxa bannaan ee doorashooyinka. tababar kasta oon qaadanayno way ka qayb qaataan waa loo carbiyaa siday u shaqayn lahaayeen. gobolada qaarkood waxaa la jooga xataa
haddii aan kasoo qaato Jubbaland ama Puntland ama Hirshabelle ama South West waxaa la joogo hay'ado. waxay ahayd gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yarey oo faahfaahin ka bixinaysay xilliga la soo gabagabayn doono diiwaangelinta axsaabta siyaasadeed ee wadanka. taliska ciidamada Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada Jubbaland ay kala wareegeen Al-Shabaab. Aadan Ibrahim taliyaha guud ee ciidamada Jubbaland oo shir jaraa'id ku qabtay Kismaayo ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay deegaano ka tirsan Jubbooyinka oo ciidamada Jubbaland Al-Shabaab kala wareegeen. waxa uu sheegay in xaaladda nololeed ee deegaanadaasi ay wanaagsan tahay, nolosha deegaanadaasina ay tahay mid aad u sareysa. sida aad wada ogtihiin dhammaantiin waxaa jira deegaano fara badan oo laga xoreeyey runaantii kooxahan deegaamadaas oo runtii bulshada hadda ku dhaqan aad dareemi kartaan markii hore sidii ay ahayd noloshoodu iyo maanta meesha ay marayso runtii yani tusaale ahaan markaan ka soo qaado hadda Cabdalla Birol oo kale waxay ka mid tahay dhulka laga xoreeyey kooxahaas nabad ma aysan haysanin bulshada ku dhaqanin wax adeeg bulshada ma aysan haysanin, caafimaad ma aysan haysanin, waxbarasho ma aysan haysanin, yani biyo ma aysan haysanin, wax haba yaraatee horumar ah oo ka jiray deegaankaas ma jirin. maantana waxaa ka jira horumar baa ka jira, waxbarashadii iskuuladii baa loo dhisay, waxaa loo dhisay MCH-kii caafimaadka goobtii caafimaadka loo haddana waxaa laga shaqeynayaa sidii maaragtay biyo ay ku heli lahaayeen oo ceel loogu qodi lahaa ayaa qorshaha ku jira. sidoo kale wadada isku xidha Biroole iyo Kismaayo iyada nafteeda waxaa qorsheysan in maaragtay iyadana wax laga Aadan Maxamuud Ibraahim taliyaha guud ee ciidamada Jubbaland ayuu ahaa oo faahfaahin ka bixinayay xaaladda nololeed ee deegaano ka tirsan gobolada Jubbooyinka gobolka Jubbada Hoose. halka wararkaasi subaxnimo aad kala socotaan waa idaacadda Simbe ee magaalada Muqdisho. iminkana wararkii dibadda, madaxweynaha Mareykanka ayaa digniin adag u diray dowladda Iran. madaxweynaha Mareykanka Donald J. Trump ayaa digniin Iran kaga digay inay weerarto danaha saldhigga Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe, isla markaana waxa uu sheegay in haddii Iran ay weerarto hantida Mareykanka ay bartilmaameedsan doonto 52 goobood oo muhiim u ah dowladda Iran, isagoona intaa ku daray in ay si dhaqso ah u duqeyn doonaan goobaha ay bartilmaameedka ka dhigatay dowladda Iran, isagoona hoosta ka xariiqay in Mareykanka uu difaaci doono danaha uu ka leeyahay bariga dhexe. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa carabka ku dhiftay in Mareykanka uu bartilmaameed ka dhigtay 52 goobood oo muhiim u ah dowladda Iran, waxaana intaasi ku daray in Mareykanka ay si degdeg ah uga jawaabi doonaan haddii Iran ay duqeymo u geysato saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay wadamada caalamka gaar ahaan bariga dhexe. hadalkan ka soo baxay madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo dhowaan duqeyn lagu dilay taliyihii ciidamada gaarka ah ee ilaalada kacaanka wadanka Iran General Qasim Suleimani, kaasoo saameyn badan ku lahaa bariga dhexe, waxaana Iran ay shaacisay inay jawaab militari ka bixin doonto dilka loo geystay General Qasim Suleimani. warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda Simbe ee Muqdisho inta ayuu ku dhan yahay. nabadgelyo. اهلا وسهلا سهلا ورني وقورماتي من دبدان بكوكو اوغاي انا شل يا امي شل ما تمي الحمد لله مرقى حالي هذه الدار حيه وحنا مغلاه سيمبا ووريجها سيمبا ذا محبن اليوم اذا عدبوا سيمبا عليرا مقعد سيمبا اللي واحد ساعد كذا ولا كساوينك sasa Simba nakuja. Radio Simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhaxayso ujeedada guud ee abaarta ay ku shaqeysana waa astaan nabadeed. Radio Simba ambaqaadka hawsha bulshada ay u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhahday tabinaysiyo iibka suuqyada yaala nooc walba ay sharaxnaayo u sheegtaa inta moog
bagash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday ii dhehday baahinaysaa irdaha loogu furaayay raadiyo simba ogaada radio simba in maqashii in madadaaliya ogeysiisyo muhiim ay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idha u baahdow ha moogaan radio simba idaacadda simba waxa ay ku taallaa daarta alkhaliij kalena xiriir taleefon